dadku waa afar nooc. dadku waa afar nooc. mid shanaad hadduu jirana adiga ku dar. afarta inaad ku jirtana bal iska day. intaan u gelin muuqaalka horteeda, muuqaalka like saar, commentana inagu reeb, walaaladana la wadaago, sii gudbi oo sii shagareen. afarta nooc ee dadka ay u qaybsamaan waxaa weeyaan qof caaqil ah, macnaha qof caqli badan, danihiisa garani, mushkilooyinkana si loo xaliyo garanayo, jecelna wax akrinta. aad buu jecel yahay inuu wax akriyo, macrifada inuu shay walba wax ka ogaado aad buu jecel yahay. kaas waxaa la yihahdaa daki, yacni qof caqli badan. nooca labaadna waxaa weeyaan qof caqli badan laakiinse iska indhatira, yani jahil iska dhigaya, taqaaba doqon iska dhigaya. waxaan wuu ogyahay laakiinse wuu ismoogeysiinaya, wuu ka indhalaabaya. qofka labaad kaasna waxaa weeyaan waa qofka dadka gafafka iyo qaladaadka ka dhaca ee yaryar aan raacraacin, aan dabagelin, oo hoos aan u dhumbanin, oo hoos aan usii raaraacin tafaashisheeda siduu ku dhacay, waxaan suu dhici karaa, aan dood iyo eed iyo low aan ka keenin. qofkaasi waa qof caqli badan. qofkaasi waa qof caqli badan laakiinse wuu iska doqon dhigaya. kan saddexaadna waxaa weeyaan doqon, ya waayo qabiy. carabi waxa lagu dhaha qabiy iyo mactuub iyo axmaq, inta waa isku mid. kaa isagana waa qofka u baahan ee baahay u hayso caqli ayuu u baahan yahay. waxa ka maqan waa caqli. marka wuxuu u baahan yahay caqli iyo wax fahan iyo inuu wax garto, iyo idraaki wax ku hareeri lahaa ayaa ka maqan. taasoo noqon karta mid abuur ah oo alla subxana watacala uu ku abuuray, iyo mid muktasab ah, yani mid la kasbado, adiga kasbanayso akhlaaq xun iyo waxaas inta ku kacdi aad kasbanayso. midka afaraadna waxaa weeyaan waa qabiyun mutadaaki. waxaa weeyaan doqon caaqil iska dhigayo, yacni mara wuxuu hogan yahay, adiga uu ku hogan yahay mara qof caaqila camal ayuu ku hogan yahay. qof caaqila oo malaynaysa, laakiin waa doqon iska caaqil dhigayo. ka isagana waxaa lagu gartaa, yacni waxaa iskhilaafaa qowlkii iyo falkii uu hadda qabtay, ayuu isla markaa ayada wuxuu la imaanayaa wax burinayo hadalkii uu lahaa iyo ficilka uu sameeyey, wax burinayo ayuu isla daqiiqada la imaanaya. markaas waxaad leedahay war ninkan doqon sana maxaa ku dhacay, hadda suman sida sameynin, waxaan muxuu sameeyey. kaasna waxaa la yihahdaa qabi mutadaaki, waa doqon iska caaqil dhigayo oo mara caaqil hugan. dadkan waxay dhahaan qof doqon ah hala munaaqashoon, yacni hala doodin, waayo dadka kalama garanayaan. waxaa imaani dadka inay kala garin waayaan labadiina keebaa doqon ah, ma adigan la doodayo qofka doqonka masana doqonka, in ay kala saari waayaan ayaa meesha imaanayso. marka qofka caaqilkana waxaa lagu gartaa qof degan. dhibaato markay imaato wuxuu garani sida khasaartada ugu yar ayuu ooga bixi. dhibaato markay imaato khasaartada ugu yar ayuu ooga baxaa. waa qof degan oo aan hadal badneen. ma hadal badno, qof hadal badan ma ahan. waa qof huduuga iyo degnaanta jecel. waa qof jecel in uu dadka bulshada la dhex noolaado si degnaan ah, yacni wax walba ay u sheegaanna iskama qaato. wixii loo sheego wax fiican buu ka qaata, inta xun uu iska dhaafaa. halka midka doqonka ah wixii loo sheego idil iska qaato gebigiisa isaga, maxaa xuni maxaa xusun maba dhahaye dushu saaranaya. galabta intaas ayaan jeclaaday inaan ila wadaago adiga, balse mid sana hadduu jiro commenta inoogu reeb oo inoo faa-idee. afartaasi ma kamid tahay caaqil iyo caaqil iska doqon dhigaya, iyo doqon caaqil iska dhigaya. afartaas ayay u qaybsamaan dadku. mid shanad hadduu jirana inala wadaag. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.